Soomaaliya Hindiya qaybta waxbarashada ammaan mas'uuliyiinta kale dhammaan ardada saxaafadda xiriiryaha dhammaan waxay ku salaamaya salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad bay sharaf ii tahay inaan kasoo qayb galo xafladan aadka qurux badan runtiina inaan xog badan ka helo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Hindiya qaybta Hyderabad oo weliba aan ka mid ahay waalidiinta carruurtooda joogto ee Hyderabad xilligii haddaan waxaan joogaa xilli yar aad iyo aad baan runtii u dareemayaa aad iyo aad baan runtii u dareemayaa inuu wanaag badan iyo runtii rayn badan sababtoo ah intaas oo Soomaali ah oo runtii maanta ka garanaysa waddanka Hindiya mustaqbalkii Soomaaliyana ah runtii farxad badan bay tahay waxaan kaloo aad iyo aad uga xumahay runtii mas'uuliyiinta kale oo labada dhinac fadhiya oo warbixinta ka bixinayay caqabadaha haysta ardada runtii inta badan waxaa laga hadla caqabado laakiin caqabado keliya ma jiraan benefitna waa jira waa inaynu ogaanaa sababtoo ah opportunity-ga maanta aa haysataan anigu waxaan iskuul ka baxay anuu gurmad shaqaran ahaa 85 labadii sano oo shaqada qaranka ahayd waxaan malaynayaa ardaydiina maanta inta halka fadhida waxaan u malaynayaa lamina kulmin 2 sano runtii shaqo qaran ah oo waqti dib runtii idinka ridiya lama inaan kulmin maanta waxbarasho sare la'aanteed oo runtii gurihiina ka jirta xilligaan iskuul ka baxayay jaamacaddu waxay ku taallay xamar keliya jaamacaddu qof waad garan kartaa economically hooseeya reerkiisu oo secondary school kaga baxay oo national service labadii sano ka baxay oo aan xamar cidi u joogin way adag tahay inuu waxbarashadiisa sii wato waxaan la kulanay marka inaanu dib isku noqono oo guryahayaga joogno oo waqti badan sidaa laga khasaaro kulli maanta dadka badan aad arkaysaan Soomaaliya mas'uuliyiinta ka markaa dib background-kooda ama CV-gooda dib u fiirisaan kulli waxaa ka buuxa waxbarashada sare inay ku qaateen dibadda taas macnaheedu waxa weeye opportunity-ga haystaan ma helin qof kasta mas'uul kasta fiirshay professor fiiri master fiiri kulli forum bay ku qaateen ra'iisul wasaarayaasha madaxweynayaasha hadda kuwa joogay kuwa hore dib markaa fiirisay waxaa markii jirtay opportunity-ga maanta aad heshaan inta straight away usoo baxdaan dhaqaalihiina kusoo baxdaan way adkaa scholarship-na waa adkaa xilligaan iskuul ka baxay dhaqaale laygu soo dirana waa adkaa waxaan maanta u malaynayaa ma jiro waa yar yahay qof isagu jeebkiisa lacag ka baxshay laakiin baalanta fiican walaal fiican ehel fiican oo caqabadahaas maanta runtii waxbarasho aanta anaga xilligaana qabsaday idinka dabara waad haysateen marka horta caqabado keliya wax jira maaha midda kale waxaad hesheen dhaqan barasho dad waxaad u timaadeen populationkiisu waxaan malaynayaa waddanka China baa ka badan baan u malaynayaa India marka la fiirsho different religion different culture and population waxaad hesheen oo dhaqan barasho marka la fiirsho waxaad kaloo hesheen marka la fiirsho isbarasho idinka laftigiin waxaa laga yaabaa maanta Soomaaliya keliya hadda Djibouti waa tan walaalkeen baa jooga Soomaali badan oo different country ka yihiin baa jooga isbarasho iyo isdhexgal fiican baad hesheen oo maanta qof kasta oo gurigiisa aad ugu tagtid ku martiyoon waxbaa kaa horeeya ood garan karaysa hadduu western aadana waa sidoo kale oo iyada laftigeedu waa arrin aad iyo aad u fiican oo runtii meesha ku jira dalbarasho waa jirtaa wax kalena aan kaftana mooto barasho iyo baabuur barashana labadaba waa jira iyaga laftigeedu meesha waa ku jirta just kaftan baa iga qaatay marka opportunity-ga noocaas ka faa'iidaysashu u baahan yahay waa run oo caqabadu waa imaanayaan meel kastana caqabadu waa ka jiraan waxaad ogaataan oo ku xisaabtantaan qofka markuu dalkiisa joogo oo government-igu education ka bixinayso iyo markuu isagu iska bixinayo isku si ma aha markay accountability timaado qofka dowladdu ka bixinayso la xisaabtan baa jira
laakiin qofka isagu beeyo oo jaamacadda lacag bixinaya way adag tahay jaamacaddu inay ku toojargarayso inuu subax kasta soo xaadiro isagaa laga rabo inuu taa ka fakiro isweydiiyo waxaa kaloo meesha jiray isweydiintan u baahan waxay tahay laba maalmood baa jira oo sanada iyo bisha iyo wiigaba ku jira oo aan lagu xisaabtamin adiga xisaabta kugu jira waa yesterday iyo tomorrow hadday yesterday ku dhaafto you can't do anything about yesterday tomorrowna dee maba garanaysa adigu waxaa tomorrow waxa imaan karaya number knows marka waa inaan ka fakernaa sidaysan maanta lagu dhaafin oosan yesterday noqon oo opportunity uga faa'iidaysana mideeda kale oo iyadana isweydiinta u baahan kulli waxaa la sheegay in caqabado dhalinyarada inan haysato waxbarashada markaa fiirsho waxyaalaha hadda aniga aan tabayo isleey waa maqan yihiin waxaa ka mid ah caalamka markaad iskuulka aadaysa waxaa la sameeyaa jaamacad kasta ama college kasta wuxuu leeyahay counseling office counseling office-ka markaad tagtid waxaa lagu weydiinayaa waxaad jeceshay inaad bartid markaad tiraahdi subjectkaasaan baranayaa su-aalaha lagaa weydiinaya su-aalaha marka lagaa weydiiyo waxaa lagu barbasgaraynayaa inaad subjectkaa qaadan karin inaadan qaadan karin waa lagu leeyahay second one ma haysan haddaadan qaadan karin haddii aad ku guulaysad subjectka inaad qaadan karin marka waxaa imaanaysa inuu yidhahdo okay subjectkaa waa ka bixi kartaa gal ani type oo marka ka mid inta waxbarashada wadatidna counseling adu diyaarka ku yahay haddii hadda tirahdid okay yesterday maxaa isku ku imaan weyd problem family baa qabsada hooyada baa xanuunsan ama abaay baa dhintay ama adeerkay baa dhintay problems la kulmay qofka mas-uulka ah wuxuu ku leeyahay qofka already caqabad baa haysata okay counseling aad baa lagu leeyahay waa in lagaala hadlaa wixii dhibaataa kugu dhacday waa in la face gareeya wax la iska weydiiya oo la yidhahda qofkan problem baa haysta saasuu ku maqnaa ma wadi karaa maxaan kuu samaynaa bala xiriiraysa telefoon ku raadinaa sidee kula xiriirnaa maxaan kuu samaynaa waa su-aalo badan baa imaanaya taas waa qofkii bini aadanka markasta uu leeyahay uu helaya dad u hiiran oo wuxuu qabanaya haddii qof dhalinyara uu yimaado oo yidhahdo waxbarashaan rabaa yuu la soo xiriiraya marka way su-aasha way isweydiin okay communitygii ma jiro organization meesha ma jiro unity ardada jaamacadii ma jiro jaamacadii counseling ma leh safaaradii halkan representative counseling ma joogo su-aasha wuxuu isweydiinaya wuxuu leeyahay kuwa baroori la dheli jiray soo raadinaya war xagee joogta marka waxaan joogaa Hyderabad halkaasaan fiican soo aad shahaadadana baabamaamo u tago shahaadada ka soo qaado opportunity badan baa jira shahaadadiisu soo qaadanaya waa imaanaya kiilo ku degaya kan afkiisu waxaa laga yaabaa problem badan inuu face garanayo laakiin ma dhahayo problem baa face garanaya wuxuu wayga ugu fudud oo isagu marin uu sheegaya anu marka waxaan qabaa waxay tahay waa inaan isweydiinaa sidee u wajahnaa problemka guys problem baa la sheegay laakiin waa inaan helnaa see loo face garanaya problem sidee lagu xalinaya senior arday waa jirtaa waa run waa loo baahan yahay in runtii waxbarashada laga faa'iidaysto aniga hadda ilmaha leeyahay Australia waxaa jira macallimiinta iskuulada hadday yihiin senior oo retire iyo hadduu yahay macallin markaa macallin iyo hadduu yahay arday senior idinkoo kale ah kulli waxay leeyihiin voluntary bay waxay ku caawiyaa ciyaarka iyada oo iskuulada soo baxaya year 7 year 8 year 9 aniga voluntary baa lagu dhigaa ciyaarka waa inaan u geeyaa marka seniorka maxaa looga baahan yahay have to open office voluntary waa inaan furaan oo juniorka soo dhaweeya oo yidhahdaan maxaa idinka caawiya iyagu counseling noqda iyagu buuxiyaa booskii counseling hadda si jaamacadu lahayd iyagu caqabadaha ay wajahayaan u sheegaan oo yidhahdaan war waxaasaa la wajaha waxaasaa la sameeya laakiin kulligan haddaynu caqabad sheegno oo caqabadii lahayd dadkii weli soo socdaan waa isla dumayna barbaranka weli waa shiis haddaad intaad ood doonatid ood weyn heshid oo qurux badan oo isla reerkii ku oodo oo aad qaadi weydo oo mid kale oo qurux badan heshid oo goysada dusha ka saari oo mid kale dusha ka saari is a rush waa adag tahay sida wax ku xalisid marka qoraxda ku dhacaysa adoo reerkii oodin waa in la helaa feasibility study wax lagu xalin karo waa inay wajahnaa qof kasta oo bini aadana waa inuu fahmaa yidhaahdaa war waxa kan waynu wada aragna caqabaduba safaaradii waa la sheegay safaaraddu markaas iyadu go-aankeeda ha qaadato laakiin waxa muhiima waxay tahay dhicisku intay birta loo soo dhigtaa horta safaaraddu intay wax soo qabanayso wax soo magacaabayso idinka laftigiinu gaabkaa waa inaad buuxsaan oo isweydiisaan oo tiradaan sidee wax lagu xallin karaya
arrinta kale oo meesha taal waxay tahay waxaa laga sheekeynayaa midow la-aan innaga tafraar waa dhib badan yahay Khalid bin Walid markuu soo islaamay alayhi salaam rasuulku wuxuu yidhi yaa Khalid waa kaa jecel weligii Allah laba su'aalood baan ku weydiinayaa buu yidhi mar kasta oo aad dagaal gashaan waa guulaysataan maxaa sabab ah yaa rasuulka alayhi salaam wuxuu yidhi wax loo sheegay intii buu yidhi laakiin laba arrimood inuu iskhilaafsan ma duulno gardarana kuma duulno haddaynu Soomaalinahay khilaaf baa problem la noqday inaga dhexdeena waxaan qabaa waxay tahay markaa masaafo kun tilaaba hal tilaabay ka bilaabataa hal qof baa wax istaan garan kara haddii laba samayso oo saddex samayso oo inteenan wax runtii diyaar waa inay frontier ku samayso anigu waxaan qabaa wax badan samayn karo laakiin haddii marna jaamacadii ugu mashquulsan yahay spare time-kiina baarankii laga sheekeynayo is very hard in dadku waxdo idinkaan isugiya waxaan qabaa marka waxay tahay inagu haddaynu runtii dad isku xiranahay anigu waxaan qabaa oo isku wanaagsan oo runtii aad iyo aad isku jecel isfahan baa imaanaya hadduu isfahan yimaadana isjacayl baa imaanaya markaas inaad jeclaado oo dad walaalo islaama oo haddana isku dhaqana isku diina isku afa isku luqada haddii isjacayl yimaadana in la isku dulqaataa imaanaysa oo midba midkeena kala dulqaato af macaan hadal macaan gacan macaan dulqaad markuu yimaado de waxaa imaanaysa midnimo Soomaaliyeed in la helo you guys maanta waxaa matashaa Soomaali waxaad ogaataa opportunity helaysaa inaad ka fikirtaa midna ku xisaabtana waddankan qofkii wax baranayana da waxbarasho waa helaya qofkii rabin waqti dhumiyana waa helaya laakiin one thing waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah maalintaa shaqo doonatid oo tiraadid aniga certificate-kaasaan haystaa qofka u shaqtaysid hal wax ku weydiinaya okay CV-ga markaa u geysatid su-aasha lagu weydiinaya waxay tahay noo fasax inaad jaamacaddaada communication la sameyn inaad kasoo baxdayn kara quest program baan waxaan ka shaqeynayay 2009 and 2014 deputy minister livestock usibcin xanaa xoolaha oo Puntland baana xilligii faroole arday badan oo runtii sheekh ka soo baxday Suudaan ka soo baxday baa shaqo la raadinay marka imtixaanka la qaaday waxaa timaada in jaamacaddooda la garaaco oo la yiraahdo ninkaas baa waxaan rabnaa details ka raadino qofkii jaamacadda soo wacda la yiraahdo details ay waa hay'adaas raadinaysa loo ogolo taa ka fakar haddii shalay shahaado foojiri aad helay maanta jaamacad foojira ma shaqeynayso mainku waxa weeye waxa aad ku dadaashaan wax ku samaysataan opportunity inaad ka faa'iidaysataan وأد بيوادرته قف وحكي هاي وقنتيس يدرس الدنيا وحد أوقاتان خاصة معه قف إنه وحبرت لأن قف إلى يدرس دراسي عمل دوسي عفمات دوسي وحكوا سوين كذا بيركيك وها إنكي هذا ليس حكم بها ما دوين بدل بعد وصل نقلب ما أقول عنه لكن السيمونات صحيح كي بقول باسي وحنا برتي مايكروسوفت انجينيرينج أنا كان أونر بانه بمايكروسوفت يسوي شغلين سيكون مقصود تتابع صدق خاصة معها إن ديجريسي مثلا واحد سويدي واحد تهي هذا شكل جاي سكتي لولا شكل جاي ديجريسي ضد كي كانت بيا يعني اسكو حكتي هي أمتي وحدي أو حاجة كمان كده وقت لأن مهمة ما أنت أنت كاره اسبدل كان أو هذا تونتي اللي بعتها هذا الخرطوط وهم وأتاك شكلني عبدنا شكلني كونسوليس كسر مهم هو because ما ده أنا قارن كان ده اسكو خرطي وارد محمد شعب بلد فيني شهادات بينه أريك لها كونتراكت بيجنا كل يديك وارد كونتراكت بيجنا هو بيجي بيش كورس يوحكوا قرر لا يكورس يوحكوا قرر هدي البدلين يصير you have to pay fee 3 years fee بقى طالع طفينا نبدل كيف فكري مدير المكتب التوعوية you have to pay 3 years fee ده سوى يحب حسي يعني مرة ما سيح وفق أتى أصح لكن ودي كانوا لعبنا بالجديد بركب واحد سويدين واحد أو أحيانا ببعض إلى سينيور كده كانت تشتغل وأحيانا ببعض كونسلنج جميل واحد كسر طلاب كسر بلاب يسوق وإنا جرجع كبروده يعني يصير بروده أنا تأثير وأنا نفوتي وباهن إنه واحد سويديو مركب أنتينا دلدين والجامعات إسك أبلا يجرين وإسك السبب فيش وأنا كلي ما يسوق عفمات قاعد ستة يقول بأن هذا ولا شيء عفمات وهربي نبغى وصل ساري
وحير بقرة وكذا صار بقرة والبقرة ما كدونا هيدا من وجهه أنا بقرة هذا عادي قبلي أو حياة رياض بروبلم إنها يستمر ورنتي أنا ما توجهنا رنتي marka waxa loo baahan yahay inaynu focus ka saarno inteena degdeg inaan wax sameeyno knowledge kastana waxaad ogaataa waxa weeye waa la suuliye macnaha hada waqti hada way ku dheereeyay inaga waxaan u baahanahay inaynu isweydiino war sidee sabab xil xaga baxta kala ku noqon karaa waxa loo baahan yahay opportunity-ga ah haysata inaad ka faa'iidaysato maanta waa ujeedaa dadka maanta wadanka hagaya aan loo baahan yahay wax qabtaan waa idinka xoogii waa idinka هذا مركب حوكي لسه تكتير ودبل ليش توريك ينود عاملين أو أبعد إن كتير قادنا يمثل إن نورش لا تكتر واحد بخواتها نورش كم بواحد بدل كليه إذا كلي أنا جمعنا قام كليه إسلام أريد أسي وتاس أريد كمان عن واحد بدنا ودكتين حليا أدي أضحى وعلى وحوي واحد في سجرين السد وودن استغلفت يسوع وودن وسترين هاي ودوما وسرين كفاسيلتي بدل واحد برشلونة لها ليبرارية هريسة انترفرية هريسة فرونت الإسبوعية هريسة وضعك إسفريحة أحمد الصومالي مرة ما يعمل قوية يدوم مركز والسلف الثاني بوحد وبدن لا قوي شبيرية وإيمانية وتقرأ كل يوم حيلان هيسمع كم إذا أنت بدل واحد كم إذا هو إلى السكندري سكول كي لا قوي شبيرية بدن أو كي مركز السكندري سكول صار لما يدرسوا سبرين مو هيستا هذا كلمة وحياة وبدل أمريكا وحوي سبير تايم كده اللغة كده ده it's very tough وذاك السبب تريبه لكن مركب انترفيو بتمية it's very tough إلى اللغة دي بكون مناسب وحياة كبير وحياة شغل وايد تايم روحي مانية ما ترى السلفة مركب روح ورا لها كسر جميل لها إن المتهاك فكرنا واحد وعينه بربنا يمكننا وعينه كوفيس قرين كنا واحد سكتناسي اللي اسمه كل يوحي برنامج كنا سفارة وشتى الحمد لله رب العالمين أمال بينو جوته كل يوحي قبل كثر ما قبل سويحي كلنا غير دام بيدرس ماشي جالسين كذا جالسين شغل جربا الباب بس إنك جرعه بس يجينا نلقاته لكن واحد يشيء واحد يسقطش الصغير وما سيد إسرائيل